halkan oo buska doonwa oo kaga beegan 16 kiiloomitir dhinaciisa sare maladaya haygay alaflaga madunti buska dooniwal waa goobaha loo dalxiisa magaalada Burco taasoo ay ka sugan yihiin dad aad u tiro badan iyo gaadiid taasoo ay joogan kamaradaanno sawiraya dadka maraanu galabta joognay ayaa indhahayagu waxay qabanayeen gaadiidka loo yaqaan tigaha taasoo ku soo farabatay magaalada gobolka Togdheer ayaa waxa ay u soo daadgureynayaan dadka goobta loo dalxiis tagay ee buska dooniwal yasiinow aragtidaada aboo wajacay labuurte ahaw odagii naftayda ilmaan dhalay aabahooda ku aaminayno arrimihi goobtan cagaaran ee loo dalxiis tagay ayaa indhahayagu waxay qabanayeen jawiga dadkoo degan iyo roobka ku daaya hodan baato ilaa quruxda ugeeg hiboy hoodaaley ilaa muuqdaato daawadayaal halkan nagala socota waa Zimbabwe Channel